hay-adda wadaniga ah ee Tadaamun ayaa maanta soo gaarsiisay deeq raashin ah oo loogu talagalay in lagu caawiyo 1200 oo qoys oo kamid ah dadka danyarta ah iyo kuwa abaartu ay saameysay ee ku nool magaalada Dhuusamareeb iyo deegaanada hoostaga. deeqdan raashinka ah oo ka kooban bur, bariis, sokor, saliid iyo digir ayaa qoys walba la siiyay 67 kilogram oo noocyada kala duwan ee raashinka ah. Maxamed Deeq Faarax Jaamac oo ku hadlayay magaca hay-adda wadaniga ah ee Tadaamun ayaa ugu horeyn ka warbixiyay deeqdan iyo cidda ay wakiilka uga yihiin. waxaan halkaan ku wareejinaynaa deeqda 1200 oo qoys oo ay ku deeqday dawladda Sacuudiga oo ay wakiil u tahay hay'adda gargaarka iyo hawlaha bini'aadantinimada ee King Salman markaana ay fulinayso hay'adda wadaniga ee Tadaamun. halkaan waxaan la joogaa maayarka degmada iyo agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka waxaan ku raahdaa dawladda Galmudug iyo tiim kale ee kamid ah maamulka degmada gudoomiye agaasime soo dhawaada. halkan maantay deeqdan raashinka ee ka kooban burka, bariiska, sonkor, saliid iyo beans ka kooban oo loogu talagalay 1200 oo qoys oo ku nool deegaankan degmada Dhuusamareeb. waxay qayb ka tahay deeq ay dawladda Sacuudigu ay ugu talagashay dawladda Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed ugu talagashay oo deegaanada kala duwan iyo gobollada kala duwan laga qaybinayay. maanta naga gudoomo maanta waxaan joognaa Dhuusamareeb. Cumar Xasan Xaaji agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka Galmudug oo qaybinta raashinkan goobjoogka ahaa ayaa ku ammaanay dhinacyada ka shaqeeyay sidii kaalmadan ugu dhici lahayd gacantii loogu talagalay oo ah dadka danyarta ah. waxaan halkan ku wareejinaynaa deeq raashin ah oo ka timid Sacuudi Carabiya King Salman ayna fulinayso hay'adda Tadaamun. mudan gudoomiye 1200 qoys sida la sheegay ayaa halkan degmada Dhuusamareeb iyo deegaanada hoos yimaado loogu talagalay qaybtii halkan ku guddoonsiinayna dadkii maantay insha Allah bulshada qorraxda iska kulul haddana Ramadaan ay tahay xilli fiican oo ku soo aaday oo uga mahad celinaynaa hay'adaha ku tabarucay King Salman iyo Tadaamun ayaduna fulinaysa oo Dhuusamareebna waan joognaa maanta insha Allah bulkariim waan wareejinaynaa gudoomiye ku soo dhawow. ugu dambeyn duqa Dhuusamareeb Macallin Cabdiraxmaan Geedo Qorow ayaa ammaanay xilliga ay ku soo beegantay kaalmadan oo ay ka faa'iideysteen qoysaskii ugu badnaa. waxaan u mahad celinaynaa dadkii maaragtay samafaleyaalka ahay oo raashinkan Soomaaliya ugu soo deeqay oo dadkan walaalahooda maaragtay iyadoo waliba Ramadaan lagu jiro 10kii dambe lagu jiro uu ajarka badnayd in maaragtay dadka masaakiinta loo soo gargaaro la gacan qabto lagala qayb qaato sidii u soomi lahaayeen iyo sidii u ciidi lahaayeen. runtii waa wax Ilaahayna uu raalli ka yahay waana waxa walaalnimada iyo islaamnimadu ay runtii ay ku jirto. marka dawladda Sacuudiga deeqda balaaran ee Soomaaliya u soo diibeen waa uga mahad celinaynaa. waxaan kale u mahad celinaynaa hay'adda Tadaamun oo hawshaas ayagu macnaha fulinayay oo na soo gaarsiiyay oo maaragtay hawshaas fulinteeda loo soo xil saaray ayagana waa aan ka gudoonnay deeqdaas balaaran oo 1200 oo qoys ah oo caasimadda iyo hareeraheeda la siinayo. marka waxaan leenahay qolo kasta ee hawshaas soo dhiibatay Ilaahay ajar iyo xasanaad weyn ha ka siiyo. Cabdullaahi Warsamroble warbaahinta qaranka Dhuusamareeb.